طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسر هذا برنامجكي أن قعدرني أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها. برنامج تحناء وإن شاء الله تعالى هبينا رمضان كي غير كيسبا سعندونا هدو اللي يراهدو أن واحد لينو صدمك جزء قرآنك habeen walba jus aan qabsanayno muddo 10 daqiiqo aan ka badnayn aan ku khulaasaynayno aan ku soo koobayno macaanida ugu waaweyn ee juskaasi uu ka hadlayo. xalaqadii ugu dambeysay waxay ahayd xalaqadii afraad. maanta waxaan bilaabaynaa xalaqada shanaad oo ah macnaheedu juska shanaad ee quraanka kariimka markii dhanka suuratul faatiha laga soo bilaabo. juska shanaad dhamaantiis wuxuu ku dhex jiraa suuratul nisaa ayuu ku dhex jiraa. wuxuu ka bilowdaa aayadda 24 ee suuratu nisaa wuxuuna ku egyahay aayadda 147 ee suuradaas laftigeeda suuratu nisaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku sheegay qaybtaas quraanka ka mid ah ama juskaas shanaad waxa uu ku sheegay uu ku bilaabay xuquuqda zawjaynka. waxyaalaha ugu waaweyn oo lagu sheegay juska waxa ka mid ah labada isqabta ee lamaanaha xaq ay isku leeyihiin iyo haddii qoyska uu soo dhexgalo muran iyo nisaac ama maaragtay isaqo qabsad sida ugu habboon ee ugu wanaagsan ee diintu ay soo bandhigayso in lagu islaaxiyo. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wain khiftum shiqaaqa baynihima fabcathuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahuma ina allaha kaana caliiman khabiira. waxaa kaloo qur-aanku halkaas uu si fiican ugu nuxnuxsanayaa oo uu u balballaarinayaa ahmiyadda uu islaaxu guud ahaan leeyahay, gaar ahaan qoyska oo ah dhibicdii ama asaaskii bulshada maaragtay ah oo loo baahan diintuna aad ay u ilaalisay oo ay u dejisay qawaaniintiisa iyo wax kasta oo dacaa'imtiisa iyo dhidibadiisa xoojin kara. juska waxaa ku jira suuratu nisaa ka mid ah oo juskaas shanaad waxaa ku jira aayad la yiraahdo aayatu oo cadaysay xuquuq 10 ah xaq waxyaala xaq oo qofka muslimka looga baahan inuu ilaaliyo oo 10 ah. waa aayadda 36 ee suuratu nisaa. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wa'budu allaha ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. marka qofka muuminka waxa loo baahan yahay inuu isku bandhigo aayadaas muxuu ka fuliyay oo uu taxqiijiyo waxyaalaha ay amrayso aayadaas kariimka ah. waxa kale oo jusku uu ku nuxnuxsaday juskaas shanaad aayadaha quraanka ay ku jira waxyaalaha aad u muujiyeen ee muhiimka loo baahan qofka muslimkaana in uu dabaqo naftiisa ku dabaqo reerkiisa ku dabaqo qaraabadiisa ku dabaqo bulshadiisa ku dabaqo waxa weeye adaa'u al-amaana ila ahliha. amaanada waxyaalaha amaanada ah in la guto. waad ogtihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala amaanadii wuxuu bandhigay inna caradna al-amaanata cala as-samaawaati wal-ardi wal-jibaal. samaawaadka iyo dhulalka iyo buurihii فأبينا أن يحملنا ويكبقين أماندي ما فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا لا وتوي. مركا أمانة بيئات سورة العدل بين الأمانة والعدل بين الناس. قفك مسلم كأمانة واحد تدكو هايستان قيب يراه أو كمل الدين أو ماركته وديعة ليراد بأمانة. وديعة معناه إنه كو ديبته أو واحد سهل وان كو هذا. نعم وقيب كمل أمانة لكن أمانة وكيكو بلارن تاي ويكواس أحسن تاي. wax kasto oo ilaahay una saaray waa amaano. caruurteena inaan tarbiyeyna waa amaano. inaanu qoyskeena diinta ku dhaqno waa amaano.
mas-uuliyadda aad ummadda u haysid inaad kasoo baxdid waa ammaano kelimadda aad oranaysid waa ammaano qofka muslimka waxa loo baahan yahay amaanaadkaas oo dhan inuu ilaaliyo haddii uu dadka uu u xaqsoorayo ama uu hadlayan inuu cadaala uu ku hadlo walidaalika aayaddan maalin walba jumcada naloo akriyo markii si naloo xasuusiyo ahamiyadda ay leedahay baa juskan ku jira oo ilaahay uu leeyahay ina allaha ya'murukum an tu'addu al-amaanaati ila ahliha وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا والوسع العلياسي أهمية أي لا هي الأمانة والعدالة الأمانة والعدالة ما أنتنا مجتمعات كمسلمين تقريبات قوة وين هيستا وأرمه دي ونقضي معركة وحس كل بانو فتن كأيود جلا أيهين لبضاس قضب أيال لا أيه شيخ يا شريف يو معركتي ورن لا يوداد بقى labadaas arrin waa labada arrin ugu muhiimsan oo ah qofku in uu cadaalad sameeyo hadalku ku hadlayo dadka uu kala xukminayo cidda uu naqdinayo cidda uu wax ka sheegayo inuu ilaahay uga cabsado cadaalad uu ku hadla ayaa loo baahan yahay walidaalika siiradii salafka haddaa u noqotid iyo al-a'imma al-huda xataa markay is naqdinayaan inaysan ka tegi jirin insaafka iyo cadaaladda qofka khasmigaada xataa inaadan ku xadgudbin saasaa loo baahan yahay amaanadana in la guto amaanada kelimada la guto أمانة العمل لجوته مركز جسكو رنتي آياتها القرآن كأ أرماس كنا نحسدين مركز وإنا أينو سكوبان دقنو آيات كستو عنو شجنو وإنا نفت هذا أدو بندكتي طلوا محل أدو كايسا مشروعات أو موضوعات معركتي هذا قاضي هاي عدالة مصميسا هذا شيخ هاي عدالة مصميسا عرورت هذا عدالة مصميسا حاسس كا عدالة مصميسا برشدة عدالة مكدح سميسا كأمانة دي إلهي كساري مجودتا يا وهكذا waxay kaloo oo aayadaha juska shanaad ku jira ay ka hadleen yani waxyaalaha ugu waaweyn baan sheegaynaa juska oo dhan ma fasiri karno 10 daqiiqo ilaahay subxaanahu wa tacaala in la adeeco rasuulkiisana la adeeco ulul amrigana la adeeco atiicu allaha wa atiicu rasuula wa ulil amri minkum iyo haddii muslimiintu ay dood iyo muran uu soo dhex maro waxa miisaanka ah inuu yahay ilaahay iyo kitaabkiisa in loo noqdo fain tanaasactum fi shay farudduuhu ila allahi warasuul إلهي كتاب سوء عليه رسولك مركو نولا نروشي سوء عليه مركو دينتنا سندي سوء عليه صلى الله عليه وسلم مركا وحلو بين طاعة إلهي ومهم مسلمين تشبدا وحو قيم حتى وقت النبي نولا أحد واحد ستان مسلمين واحد شباب مركي نبي أي طاعة سي أي مركو يكوي بورت كسو دقنينا أي كسو دقن صحابة دي مروا البنوا أساس مركز تو إلهي رسولك لو عاصيو مسلمين تشب أي أصص مركا إن دتك مسلمين تا أي إلهي رسولك أي طيعان أولو الأمر oo lagu fasiray culimada iyo inay xukaamta iyagana in la maqlo oo maaragtay khayrka iyo wanaaga la maqlo aan fitan laga dhaxkicin bulshada loo naseexeeyo ayaa loo baahan yahay haddii muran u yimaado binaan bal ama khilaaf u yimaado ilaahay kitaabkiisa loo celi yaan qof walba shahwadiisa iyo maaragtay haduu hawadiisa iyo shaytaanku wuxuu yeerinaya iyo waa in laga fogaado shaytaanku wuxuu dadka muslimiinka amraya البغضاء والشحناء والعداوة بينهم إنه دحدقوا مركا آيادون أرماس كنا نحسدين سورة وحي سي آدية آدة جزء الشناب آيات قرآن وحا كترت إلهي وليهي أو عنوانك برنامج كان عنك قاضى النيئة أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن والقرآن كلاميز كتدبرين وأيسن آدو فير سنين وأيسن أولا نقولانين وأيسن كتطبقين نلشوا أيسن كتطبقين وإلهي الله سبحانه وتعالى إلهي حق سكيمة دو عدك الكيمة الله وسخلاف لها مركا رنت تاسل وحا كترتا وبورين لنا ودقنين إن القرآن كأن اسكمرنو لنا وبورين لكو بورين القرآن كتدبرنو أخرينو روحنا معاني سو نفتين كتطبقنو سورة النساء واحد كل حدا يسامى كل حكسة كلمة فضل إيا وحيالها كفر عن مشتقات كذا فضل الله أي آدو صنع نغنية ذلك فضل الله ذلك الفضل من الله ذلك marka halka suuradan waxa lagu sheegay xuquuqda dadka ducafada ah sida aytaamta iyo dumarka iyo haduu alla ku roon yahay dadka noocaasa marka ilaahay fadliga subhanahu wa ta'ala adiga xooga iyo ku siiyay ama yatiim ka dhigin inaad ku xuquuq ku xad gudbin oo ilaahay inuu ka qaadi karo fadligaas oo cid kale u siin karo ayaa halkaasna laga jaleecsanaya ay culimada qaar ay dhaheen ilaahay wuxuu ku sheegay suurada juskaas shanaad dhexdiisa al-muharramatu min an-nisa dumarka xaaraanta naga ah kuwaasoo aysan noo banaanin inaan guursano ayuu ilaahay ku sheegay saas oo kale waxa nolo kaga digay juska dhexdiisa
aklu amwaali nnaasi bilbaatil dadka xoolahooda in xaqdarro lagu cuno oo maanta isaad ogtihiin qofkii maalka ma fiirinayo suu kusoo gelayo iyo meeshu ka soo galay khadaaca jira iyo dhibka jira iyo xaquuq naas amaanada dayaca dadka xoolahooda iska cunayo ilaahay in laga boqo suuradaas aad bay ugu nuxnuxsiiba juska shanaad khutuurada ay leedahay iyo khatarta uu leeyahay aklu amwaali nnaasi bilbaatil in lagu cuno بالرضا بالبيع بالشراء بالهدية بالعطاء وبنانته لكن حق درينا كعنتي ما بنانا سورته وحا أما جزء وحكون نحصدي آية وحا كتيرة آد نوجد جيسا خطرت على هذا هنا شيء جيسا قف مؤمنة إن الود له حق در دبجا سود وياهي يوعيد كشديد كإلهي ويباه قف مؤمنة حق در كدله إلهي وحي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه فجزاؤه جهنم خالدا فيها أبقت وجهنم هو عريه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاب إلهي سبحانه وتعالى جهنم قلنا يا وعراضي نحريس سوكفوغي ودياري قف مؤمنة حق درك ودي عذاب آدي هذا ودرن أيها دياري halka waxaan ku soo khatimaynaa xalaqadeeni shanaad afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha wallahu a'lam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin